إنا لله وإنا إليه راجعون barnaamijkan tacsiya ayaan kusoo gudbin doonaa isla markaana aan ugu tacsiyeynaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo bahda saxaafadda gabi ahaan waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Allah u naxariisto maamo caan ahayd oo lagu magacaabo maamo Asli Yuusuf Gacal, run ahaantii oo bahda saxaafadda ka mid ahayd isla markaana ahayd hal abuur soo gudbiya sheekooyin wacyigelin ah iyo sheekooyin badan oo ay ummadda ka faa'iideen isla markaana waxyaalo badan loogu waaninayay. Run ahaantii maamada xilliga aan dhageysan jiray iyo waqtiyada aan idaacadda ka maqli jiray, sidaa daraaddeed ayaan tacsiyadeeda jeclaystay inaan ummadda la wadaago. Waxay ahayd xilli aad u dheer, sanadkii 2000 ayaan xasuustaa idaacad lagu magacaabo Simba ayadoo halkaasi riwaayada ka jiri jirtay isla markaana soo gudbin jirtay. Isla markaana waxay ahayd dhanka kale qof hal abuur ah oo alifo riwaayad complex ah oo dhan isla markaana dadka u soo gudbiya. Waxay ka hadli jirtay arrimooyin badan wacyigelin ah, waxyaalo dhacay, waxyaalo tagay intaba iyo waxyaalo la taagnaa isla markaana u baahnaa in bulshadu aad loogu waaniyo iyo dhalinyarta qaybaheeda kala duwan sida sheekooyin wacyigelin ah oo qaar ka hadlayay waxyaalo badan. Aan ku xasuustaa sheekooyin badan oo ka hadlay dhinaca duruufta isla markaasna qofka inuu lacag yeelan karo aan lagu nicin duruufta, oo isla markaasna sheekoodii ay ku bilaabanaysay wiil duruufaysan iyo gabar inay is jeclaadaan, yacni qoys ay ka dhalatay gabadhii oo lacag leh isla markaana ay u diidaan, dadaal badan iyo isku dayo badan u sameeyay ay ka diidaan isla markaana birito aad arkayso ninkii oo lacag is yeeshtay oo is bedelay iyo waxyaalo badan. Sheekooyin badan oo aan maskaxdayna marnaba ka bixi doonin ayay u ahayd qof fikira oo isla markaana ah qof wanaagsan dhan walba diinta xaggeeda sida aan ku garanaya isla markaana ay ugu sheegeen bulsho badan oo Soomaaliyeed oo ay ka howlgalaysay idaacadda Simba isla markaana ay ku soo wariyeen taariikh nololeedkeedii iyo dhammaan waxyaalihii ku saabsanaa oo macluumaad ah. Naf walba way dhimanaysaa, Allah subxaanahu wa tacaala u naxariisto. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Kulli nafsin daa'iqatul mawt ayaan leenahay. Aad ayaan ugu tacsiyeynayaa dhammaan qaraabadii iyo ehelkii ay ka baxday oo aan leeyahay sabar iimaan Allah naga siiyo dhammaanteen ayay naga dhimatay. Waxaa kaloo aan leeyahay insha Allah waxaan rajeynaynaa in dambigeedii Allah subxaanahu wa tacaala uu dhaafo isla markaana janno Allah subxaanahu wa tacaala uu siiyo. Waxaan leeyahay annagana dhammaan bulshada Soomaaliyeed sabar iimaan Allah naga siiyo meel kastoo aan ku suganahay, intii taqaanay intii aqoonin intii cod ahaan xasuusato isla markaasna halka ka dhageysan jirtay xilliya aad u fog oo taariikhdu ay xataa qaarkeed aad u dheer tahay 2000 ilaa haatan waa garan kartaa. Marka waxaan leeyahay dhammaanteenba Allah naga kaalo dadka bulshada wax doorka u ahaane waa in ayagoo nool ayagoo dhintay intaba la xusaa oo loo duceeyaa qaarka dhintay qaarka kalena yacni aan waxay naga mudan yihiin aan siino insha Allah. Qabrigeeda Allah u waasiyo ayaan leeyahay dhammaanteen insha Allah. Waxaa idin soo gudbinaya waa janalka lagu magacaabo Dooxa Media, tacsiyaasi tiraanyada leh oo aan la wadaagay dhammaan bulshada Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay Allah u naxariisto insha Allah taala. Fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe saaro, gambaleelkana furo si aad ula socoto waxyaabaha aan halkan ku soo gudbino wax badan ka anfici doono. Fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe saaro, gambaleelkana furo si aad ula socoto waxyaabaha aan halkan ku soo gudbino wax badan ka